Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Halka aad naga daawanaysaan waa channelka Kanur Eno iyo Facebook page-ka Nur Arladi. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa muuqaalkan waxa loo yaqaano data entry. Waad maqashay data entry in badan. Runtii data entry waa shaqada ugu fudud ee online-ka la qabto. Data entry-ga waxaa loogu shaqeystaa siyaabo kala duwan oo company kala duwan ayaa loogu shaqeystaa. Marka xirfadan data entry-ga wax barasho kaagama baahna haddii aad kaliya computer aad wax ku qori karto waad ku shaqeysan kartaa xirfadan data entry-ga. Data entry waxaa loo yaqaanaa in aad xog ku qori kartid, xog oo hard ah lagu soo dhiibaa inaad computer gelin kartid, haddii ay tahay word aad ku qoraysid, haddii excel aad ku qoraysid, haddii powerpoint ay tahay antaba. Marka data entry waxaas loo yaqaanaa company badan oo caalamka ayaa arrintan ku shaqeysta. Ayagana waxay si joogto ah u qaadanayaan shaqaalo joogto ah ay qaadanayaan. Marka sida company-yada ugu waaweyn ee dalka Mareykanka ku yaala way u baahan yihiin data entry-ga. Website waaweyn waa lagu shaqeystaa oo internet-ka ah sida Upwork iyo Freelancer, Fiverr iyo Peopleperhour. Saddexdaas website ayaad ugu shaqeysan kartaa. Runtii data entry-ga waa shaqada ugu fudud oo bilaa xirfad ah oo aad internet-ka haddii aad online-ka lacag ka samayn rabtid aad ugu shaqeysan kartid. Marka dhalinyarada rabaan inay internet-ka lacag ka shaqeeyaan ama ay ka shaqeystaan ayagoon xirfad lahayn waxay ku shaqeysan karaan xirfadan data entry-ga iyagoo kaliya ay u baahan yihiin inay haystaan laptop ama computer waxa loo yaqaano. Waxayna ugu shaqeysan karaan siyaabo kala duwan ama saddexda website aan soo sheegay ay ugu shaqeysan karaan ama si toos ah company-yada ay codsi u dirsan karaan oo data entry jobs haddii aad online ku qorto company fara badan ayaa kusoo baxayo. Haddii aad codsi u wada dirsato midda kusoo jawaabta ayaad sidoo kale ugu shaqeysan kartaa. Marka data entry waa wax aad loogu baahan yahay runtii. Dadkaas dunida horumartay jooga runtii ma rabaan inay waqti geliyaan inay xog buug ama ay qoraan qoraal dheer ay computer-ka waqti badan ay ku qaataan. Marka halkii page ayaa waxaa laga yaabaa in uu siiyo lacag ku dhow $15 ilaa iyo $40. Marka shaqooyinkan ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu fudud ee online-ka lacagta loogu samayn karo. Runtii haddii aad danaynayso xirfadan runtii waxaad ugu shaqeysan kartaa saddexda website oo soo sheegay, waana website-yada ugu waaweyn oo laga shaqeysto freelancing-ka. Runtii dad badan ayaa website-yadan lacag badan ka sameeyo bishii, maalinkii iyo isbuucii. Haddii aadan noqon karin YouTuber, Facebooker ama waxyaabaha la mid ah oo aadan haysanin talent aad soo gudbiso, runtii xirfadan data entry-ga aad ay kuu anfacaysaa. Data entry-ga wax badan ka ogow oo noqo data entry oo qof data entry-ga ku shaqeysta. Ha fadhin runtii haddii aad dadaasho xirfadan waqti aad geliso waan hubaa inaad maalin uun ka faa'iidaysid oo aad wax badan ku qabsan doontid. Marka isku day sameey. Dad badan ayaa xirfadan data entry kaliya ka sameeya maalinkii lacag $60 ilaa iyo $120. Marka weliba dad Soomaali ah ayaa ku shaqeysta xirfadahan waxayna ugu shaqeystaan website-yada hadda aan idin sheegay. Marka Fiverr siyaabo kala duwan ayaad ugu shaqeysan kartaa. Muuqaal ayaan kasoo samayn doonaa insha Allah. Horena waa u ballan qaaday, haddana waa insha Allah weliba ku guda jiraa inaan course fiican oo sida Fiverr loogu shaqeysto inaan soo diyaariyo. Marka xirfadan degdega ah ayaan istahay saaxiibada la wadaag. Waxaan jeclaystay inaan xirfadan idin wadaago. Marka muuqaalka haddii aad ka hesheen like garay dhiirigelin ay inoo tahay. Channelka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biiro, subscribe saaro, gambaleelkana furo muuqaaladeena si ay kusoo gaaraan. Saaxiib soo dhawow. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Thank you.